badha saabka ku qanci mayno waayo xil ka sarreeyaanu eeganay inaad ka siiso badha saabka halka ninka daaqadda kaa soo geliyey Gabiley ka yeeli mayno xukuumadda haddii ay u soo dhigato shaqaale hoosaadka ka aqbali mayno arrintaa waana lagu yeedhiyaa adiga madaxweyne waa lagu lugoynayaa waxa ku yeedhiyay ninka xirsi la yiraahdo in xaashi haddii taasi ay sii socotana buuraha sida loo galo waa naqaan qaar ka mid ah waxgaradka odayaasha iyo dhalinyarada gobolka Gabiley oo warbaahinta la hadlay ayaa xukuumadda cusub ee madaxweyne Cirro ku eedeeyay in ay si gaar ah u beegsanayso shaqaalaha dawladda ee beesha Sacad Muuse iyo Jibriil Abokor iyagoo oo sheegay in si argoosi ah looga caydhinayo shaqada sida ay hadalka u dhigeen waxaana ay fariin u direen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro Soomaaliland oo aan la naga siin xilaalkii aan ku lahayn agaasibe iyo la naga siiyay iyo badha saabo waxa weeye taasi wax noo cuntoose maaha taasi waxa noo dheeraad noqday ina laga dhigay shaqaalihii la daba raacay haddana oo la daba socdo waxaan u sheegaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland haddii taasi ay sii socotana buuraha sida loo galo waa naqaan reer Gabiley haddaanu nahay isbeddelka aad sheegaysana annagu nagu socday taana waxaan ku leenahay madaxweyne haddaad ka noqon weydo arrinkaa ka talaasuli weydo taladeeda dambe adaa yeelan doona annaguna waxaan yeelayno annaga inoo taalla gobolka Gabiley ayaanu ka hadlaynaa annagoo ah magaca guud ee Jibriil Abokor ilaa Sacad Muuse aanu gaadhisannahay maaha Jibriil Abokor maaha waxa weeyaan madaxweyne isbeddelkii aad sheegaysay sida ninkaasi iga horreeyey u sheegay Gabiley ayay ku socotay waxa la wax maskaba oo aad naga siisay xukuumadda imika aad qabatay ee aad bedeshay xukuumadihii hore ma hayno weliba waxa noo dheer inaad shaqaale hoosaadkii ku dhaadhacday oo aad muxuu ahaa kolba in aad erido ayaanu ognahay waxaa la yidhi hasha marka neefku ka dhinto maqaar baa la hor dhigaa annaga maqaaraad na hor dhigtay badha saabka ku qanci mayno waayo xil ka sarreeyaanu eeganay inaad ka siiso badha saabka halka ninka daaqadda kaa soo geliyey Gabiley wax ka sarreeya ninkii albaabka kuu furay meel ka sarraysaanu eeganay inaad geyso ma annagaad maqaar nooga dhigtay oo tidhi maqaarkaa hasha ha sitaan oo badha saabaan idinka dhigay Gabileyey war annagu waxaanu gaadhsanahay heer Jibriil Abokor heer Sacad Muuse waana lagu yeedhiyaa adiga madaxweyne waa lagu lugoynayaa waxa ku yeedhiyay ninka xirsi la yiraahdo in xaashi inay ku yeedhiyaan baanu ognahay argoosashada aad arrintaasi ay iyagu kugula taliyaan waxaanu ka aqbalaynana maaha la taliyayaashaada iyo adiga dalkana nagama xigtid iyo dawladda iyo xukuumadda annagaana ku keenno qayb ka mid Gabiley baa ku keentay xisbiyadana waa lagu kala jiray ninba xisbuun buu ku jiray intii xisbigaaga ku jirtay ku soo saartay maxaad u qabatay Sacad Muuse oo dhan maxaad u qabatay Hargeysa waa lagaaga riday Sacad Muuse kaaga riday birbiro waa lagaaga riday habar walba kaaga riday midna waxba maskaba u qabatay ma jiraan haddana shaqaale hoosaadkii ayaad maalinba mid ka tuuraysaa meesha waanu ognahay waxaad ka argoosanaysana ma garanayno madaxweynenimadaada waanu ogolahay laakiin waxa lagugula talinaya aanaan ogolayn Gabileyna maskabiyaanu kaa doonaynaa Gabiley kaa doonaysaa Sacad Muuse kaa doonayaa habarawal kaa doonaysaa ma yeelayno kumana qancayno intaa kolkaa waxa weeye annagu waxa noo tirsadoo nasayba ma garanayno horjeednaa arrimaha xukuumaddu ay ku tallaabsanayso ay ku wajahan shaqaale hoosaadka ka yeeli mayno xukuumadda haddii ay u soo dhigato shaqaale hoosaadka ka aqbali mayno arrintaa laakiin waxaan xukuumadda u sheegaynaa arrintaa inay xukuumaddu ka laabato oo weliba wixii aanu xaq ugu lahayn aanu ka helno xukuumadda ayaanu 100% ka rabnaa aqbalina mayno sheekada ay xukuumaddu wado ee shaqaale hoosaadka ku wajahan in la waarsado shaqaale hoosaadka
siiba shaqaalo hoosaadka laga soo bilaabo habar awal ilaa laga soo gaadhsiiyo annagoo ku hadlayna afka habar awal ilaa afka jibriil abukor aqbali mayno arrimaha lagula talinayo xukuumad madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan nimanka talada xune ay kula talinayaan ee aanu ognahay siiba wasiirka madaxtooyada iyo rag kale oo la halmaalaa ay kula talinayaan arrimaha noocaasa aqbali mayno yeelina mayno madaxweyne mudane madaxweyne waxaanu ku leenahay isbeddelkii aad noo sheegaysay waxaanu aragnaa isbeddel annaga u nagu wajahan oo habar awal ku wajahan inuu yahay ayaa noo muuqata taasina socon mayso shaqaalahana waxaanu eegaynay in wax la sii kordhiyo oo isbeddelku dadka saamayn ku yeesho oo wax la kordhiyo oo in dibadda taagnayd shaqo hesho oo shaqaabuur loo sameeyo ayaanu eegaynay maanaan eegayn shakhsiyaadkii ku dul qombabay kolka horeba ee waxay ku hayeenba aanay jirin ee meelaha joogay iyo kuwa jawanka jaraya in la waadsado taa maanaan filayn waxaanu mudane madaxweyne kaa rajaynaynaa inaad shaqaalaha kordhiso ayaanu kaa rajaynaynaa inaad xabadxabaddii meelaha joogtay inaad ugaadhsato taa kaamaanaan filayn madaxweyne ka noqo arrimaha saamayn bay kugu yeelanaysaa xukuumaddaaday dhaleeca ku tahay ka noqaanu ku leenahay mudane Sikiriya Nuux Ibraahim telefishinka CBA gobolka Gabiley